kulankan oo ay isugu yimaadeen odayaasha beesha Eelay oo kamid ah beelaha deegaanada Koonfur Galbeed ayaa maanta shir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxay uga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan xuquuqda beeshu ay leedahay. beesha ayaa waxay soo saareen go'aano la xiriira ka tashiga beesha waxayna ku baaqeen shirweyne degdeg ah. Ahmed Maxamed Nuur oo ku hadlayay afayeenka beesha ayaa waxa uu warbaahinta u aqriyay hormurtiyeedkii ka soo baxay. shirkan maanta waxa uu ku saabsanaa shirkan maanta waxa qabsaday waxa waaye beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo la yiraahdo beesha Eelay saddex gambari mashaaqda ka kooban ayaa kulankan maanta yeelatay. kulankan maanta ah cid si gaar ah loogu dhibaateynayo ma jirin, cid si gaar ah looga cabanayo ma jirin, cid si gaar ah loogu amaanayo loogu bogaadinayo ma jirin. wuxuu ahaa kulan wada tashi ah oo ay ku tashanayeen odayaashii, culamo diinkii, siyaasiyiintii, dhalinyaradii, aqoon-yahankii dhammaan rag iyo dumarba ay beesha ka koobneed qaybaheeda kala duwan ayaa يعني كنت شنا ما أنت ماشي قوة كل وحيلاقي مهديسا كلن كأنه نوصل جوابي خير كلن كاس سجأ وحمان تلوجها اللي وحوا عوض التشي ما دام حالات الدلك هذا ومرايو عن الله صعون سيدا عن الله صعون بقى يجرت حالات دورشة يجرتو يعني وحوا قصي أريمها دورشة ده ما دام أريمها دورشة اللي جرو باشي معناها بارك اللي إسكجفو اللي أبديت قريو وحالدي دلك دنعي وجوري سلولة جورو والله وضع تشتو سيدا سي معناها كوساب سند وضع تشي قاسو كوساب سنة وحكلو كسب بحي شركة وحكسب بحي يعني جبدي يعني إن جبدي إن كلن كلا يعني معلومة صوصة هذه إلهي هذا أنشاء دونه لقبان دونه أو كان كوين كلن كاس السجع يقبل قابدي يهوشيسا جودي صار لهاي أو جودي فرسمة أو كوي طبعا حبنات ككوبن أو دمان قيبها بلشدان ككوبن تهاي قبيل كان ليس تحت جبر مشاغل وككوبن هاي أيا لجو سمية ما أنت لجو دسي مركا جودي جاس هذه إلى إرادة نتيجة كسب بعد وحاول تشي جاس إنه ملفي عن كسر دمادي جودي جاس فرسمة أهنا لما جعبي الله دسي إن شاء الله تعالى أنت سأيو كلن كان ما أنت كسب سنة حسين علي جسر لادي نيوز مقدشو.